السلام عليكم akhyaarta maanta videogan waxaan uga hadlaynaa mowduuc aad u xiiso badan waxaan uga hadli doonaa sidee cryptocurrency loo maalgashtaa muxuu yahay cryptocurrency waa maxay blockchain sidee loo furtaa investment account waxyaalahaasaan ku qaadaa dhigi doonaa ee ila soco insha allah videogan waxaan isku dayi doonaa inaan soo koobo waa maxay lacag waa wax ay dadka u wada aqoonsadeen inay wax faa'iido leedahay sidaas darteedna ay qiimo u yeeleen sidaas bay lacag ku tahay ama ha noqoto coinskii beryihii hore shilimadii iyo wixii la isticmaali jiray ama lacagaha shilin soomaaliga oo kale oo la isticmaali jiray ama dal walba lacagta uu leeyahay waxa qiimo u yeela dadkooda waayo waa medium of exchange waa wax ay dadka wax ku kala bedeshaan laakiin beryihii hore waxaa jiri jira inay dadka wax ku kala bedeshaan qof walba wuxuu uu haysto kasoo qaad tusaale ahaan aniga haddii aan leeyahay neef xoolo ah neefkaas waxaan leeyahay arigan iiga bedelo toban ama galey ah ama qamadi ah ama waxyaalaha noocaas ama timir ah marka xoolaha waxaa ku bedelanaysaa wax kale ama waxaa ku bedelanaysaa faras ah waxaa ku iibsanaysaa geel waxyaalo noocaasa lagu bedelan jiray suuqyada lagu kala iibsan jiray maadaama uunan jirin wax gooniya oo la wada ogaa xiliyadii kasii horeysan waxaa la isticmaali jira goldiga iyo waxaasoo aad u qiimo badnaa iyo lacago kale oo silverka ama waxyaalaha noocaas ah laakiin hadda lacagtan oo aan ka hadli doono mowduuca videogan wuxuu ku saabsanaan doonaa cryptocurrency so waa maxay cryptocurrency wuxuu ku beesgaraysan yahay muxuu ahaa blockchain haddii aan wax yar ahaan si macquul ah aan kugu fasira fahmaysid waa spreadsheet ama database weyn ama system weyn oo transactionska dhan ay dhex marayaan oo lacag walba ah cidna waxba kama bedeli karto cidna ma qarin karto cidna muxuu ahaa keligood ma ilaashan karto waayo waa wax dadka dhan ka wada dhexeeya waa transparent balse laakiin waxba ma ka bedeli kartid transactionna hadduu dhaco uu dhacay waa la diiwaan geliya systemkuu galaya faa'iidooyinka kale uu leeyahay waxa waaye anonymous qof magaciisa laguma attach garaynaya laakiin codes iyo id numbers lagu attach garaynaya oo raacaya systemkaas weyne blockchain uu ku fadhiyaa marka cryptocurrency waa maxay cryptocurrency waa lacag virtual ah ama digital ah oo hawada inta badan waxa ku jira oo la isticmaalayo waaye waxaana loogu talagalay dadka in ay ku kala iibsadaan wax si fudud oo aan lahayn middleman inta badan waxyaalaha kale dhan waxay leeyihiin qof middleman ama third party ah sida ama dowlad ama bangi ama waxyaalo kale laakiin cryptocurrency transaction aa sameynaysaa kasoo qaad faaraxa lacag wuxuu u waday $1 caasho kunkaas dollar oo inuu u tegay la cadeynaya waxaana lagu cadeynayaa ledgerka ama spreadsheetka weyn marka uma baahna inuu bangi dhex maro ama in la approve gareeyo ama cid kale inay dhexda kusii haysato sidoo kale marka uu bilaabanayay cryptocurrency-gan waxaa bilaabay Nakatoshi nin la dhaho oo ilaa hadda inuu nin naag ama group ama koox ay yihiin cidna ma garanayso Nakamotogaas balse 2008 waxaa soo baxay cilmi baaris oo qaada dhigaysa waa maxay bitcoin digital currency siduu adduunka u bedeli doono oo revelation uu sameyn doono waxyaalo badan uu uga hadlayo markii dambena waxay ku dhaqaaqeen groupkaas ama shaqsigaas in ay abuuraan bitcoin waa mid ka mid ah coinanka ugu caansan ee la isticmaalo sidoo kale coinan kala jira ethereum solana doge shiba aad bay u badan yihiin waa waxaa sii baabaari kartid ma ahan mowduuca hadda inaan dhankaas la aada ma rabo sidoo kale laba qayb oo investmentiga ah ku sameyn karto oo midda koowaad way yara adag tahay waxaa la dhahaa miningka inta badan waxa waaye systemyo iyo waxyaalo waaweyn aa sameysanaysaa si adigana aa qayb uga noqotid dadka verify gareynaya ledgerska ama blockchain transactionska soo socda ee dhex maraya kadibna waxaa leedahay ujro yar ama transactionkaas waxaa ku lahaanay dhacaya wax yara ku lahaanaysaa balse laakiin resources iyo lacag badan iyo maalgelin badan marka hore kaaga baahan yahay midda labaad oo ay ku fiican tahay qof walba inuu muxuu ahaa ku maalgashto waxa waaye
iibso bitcoin, ethereum, solana, cardano, kuwa kala duwan iibso waxa aad awoodid, balse ha noqoto lacag aad ka maarmaysid, ayna noqon lacag 5 sano 10 sano 8 sano ee soo socota aad u baahan tahay. waayo ma ahan waxaan investment oo hadda aad gashanaysid beri aad la bixaysid, ama hadda aad gashanaysid muxuu ahaa sanad kadib aad boqolaal kun oo dollar helaysid. ma ahan, way dhici kartaa, laakiin siduu hadda historygii hore la fiiriyo 2010 marka uu bilowday transactionskan ilaa hadeertan, dadka ritaanka fiican ama lacagaha fiican soo celiyey waa dadka muxuu ahaa investment long term plan sameeyey. tusaale ahaan qofkii maal gashtay cryptocurrency markii ay bilaabatay July 2010, hadda qofkaas waa multimillionaire, 88 milyan akoonkiisa ku jirta, haddayna hadda kasii badnaynba. sidoo kale qofkii 2011 wax yar sanadkaas kadib isagana maal gashtay lacag intaas u dhow heystaa. 2017 way kasii yar tahay inta badan, maybe dadka Soomaalida 2017 dadkii maal gashtay waaye. qofkii 2017 maal gashtay oo kale asagana wuxuu helayaa lacag 4.3 milyan camal ah. lacag yar maahan 4.3 milyan oo akoonkaaga ku jirta, balse laakiin hadda qofkaas meequu ku sameeyey minimum waxa waaye hadda 17 18 19 20 21 2022 lagu jira, waa 5 years minimum. balaankaaga ha noqdo lacagta aad gelinaysid inay 5 year noqoto, lacagta ugu yar aad gashan kartidna ha noqoto aadan u baahnaanaynin ama aadan rabin inaad isticmaasho sanadaha soo socda. lacagaha qaarka ugu yar oo hadda aan tusaale ahaantan kusoo qaato waa $100, laakiin maadaama xilliyada isbedelayaan $100 inaad ka yar badiso oo 200 500 kun wax aad ka dhigtid oo 5 sano 10 sanana long term plan meesha ugu daysid, kadib waxaa arkaysaa faa'iidooyinka iyo ritaanka uu leeyahay. hadda marka qaybta yarka sida loo sameeyo akoon oo kale si bobsis ah haddii aan kugu kormaro, waxa kaliya hadda aan isleeyahay platformka aad loo isticmaalo Soomaaliya ka furan waa Binance. Binance sida ujeedaan website-ka markaa geshid registrationkiisa waa aad buu u fudud yahay, waa straight forward. passportkaaga ID kaarkaaga waxaas diyaarso, siduu magacaaga ugu qoran yahay waxaas geli. hadda qof dalka dibadiisa ama Soomaaliya ku nooleen oo kata ama American waa ina cadeysa, laakiin hadda Soomaali tahay Soomaalinimadaada caday. Soomaaliya uu u furan yahay dabcan. Binance waa aad looga isticmaalaa, dadka inta badan asaga isticmaalaan, waana kan ugu fudud. registration verification sameey, $100 iskaga tuur, weliba adoo isticmaalaya premium bank account isticmaali kartaa, wax oo aad u sii adag maahan. $100 $200 iska geli, iskaga hilmaam, hana dabagelin. 5 years 7 years 10 years waxay noqoto, waxaa arki doontaa in lacagtaas bulaasho ay faa'iido badan ku dhasho. laakiin waxaan kaaga digayaa in aadan muxuu ahaa dadka qaar ku dhahaan anagaa kuu sameynaynaa lacag soo dir 200 300 500 oo muxuu ah platformo kala duwan oo magacyo kala duwan loo samaysta aan lacagtaada lagaaga dhicin. lacagtaada meelaa og tahay aa hubtid geli, balse mar walbana horta waa inaa noqotaa qof wax ka shakiya markii lagu dhaho $100 keen bil walba $100 aan ku siinaha, war ani $100 aan bixiy bil walba seen $100 ku helaya, wax yaalo oo logic ah loo baahan yahay, ma ogtahay. akhyaarta videogan inaa aad niigu dheereeya marabo. insha Allah maalgashta waa muxuu ahaa waa investment u fiican mustaqbalkaaga kan dhow iyo kan fogba. Asalaamu calaykum waraxmatullahi. subscribe garay akhyaarta kalena la sii share garay insha Allah.